kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada warka galka wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah dagaal ka dhacay magaalada Laascaanood iyo faahfaahin laga helayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ambabaxay dalka Masar shir ay yeesheen waxgaradka gobolka Sool oo ku shiray magaalada Laascaanood oo laga soo saaray warsaxaaf Soomaaliland 15 sano gobolka haysatay sidii lagu sheegay ogolaanshaha sharcigana kuma iman xoog bay ku qabsatay aan ciidamo kula dagaalamay xabad balagu danayo oo ku dhawaaqay hadal shaki galiyay siyaasiyiinta Puntland aniga ma ahan madaxdii hore oo dhan waa ku dirdirsan jirtay dibna mal akhbaaraadka dhinaca dibadda warkaan idinku haynana waxaa ka mid ah golaha ammaanka oo kulan gaar ah ka yeelanaya xaaladda dalka Ukraine qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku dhageysan doontaan warka galka wararka aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta booqasho rasmi ah oo qaadan doonta muddo 3 cisho ugu ambabaxay dalka Masar mudane Xamse iyo wafdigiisa ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Qaahira waxay wada hadal la xiriira iskaashiga labada dal ay la yeelan doonaan dalka walaalaha nahay ee Masar shir ay isugu yimaadeen waxgaradka iyo cuqaasha gobolka Sool ayaa lagu qabtay magaalada Laascaanood kaas oo maalmihii la soo dhaafay uga soconayay magaaladaasi ayaa waxa ay ka soo saareen warsaxaafadeed ku saabsan aayaha gobolka Sool shirkan oo lagu qabtay guriga Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil ayaa waxa laga soo saaray qodobo aad muhiim u ah kaas oo taabanaya aayaha iyo mustaqbalka gobolka Sool Soomaaliland 15 sano gobolka haysatay sidii lagu sheegay ogolaanshaha sharcigana kuma iman xoog bay ku qabsatay aan ciidamo kula dagaalamay xabad balagu dhigay maanta shacabkii halka joogay 15 sano sidii garaadku sheegay halka uu dhaafay waxaanu leenahay iyadoo tulimada la ilaalinayo qoysnimada la ilaalinayo dariska la ilaalinayo jiritaanka ummadda madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane waxa uu sheegay in madaxda Puntland ay isaga ka horeysay ay ku darsan jireen waqtiga xilhayntooda isagoo haddii uu ku darsadana aysan ahayn mid dhib leh bilihii la soo dhaafay ayaa siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada Puntland waxa ay shaki ay gelinayeen in madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane uu qorsheynayo inuu samaysto muddo kororsi taasi oo siyaasiyiinta qaar ay ka soo horjeedeen ayna ka digeen in arrintaasi ay keeni karto iska horimaad siyaasadeed iyo qalalaasa siyaasadeed oo ka dhasha deegaanada Puntland inkasta oo Dane hadalkan uu yiri haddana waxa uu sii raaciyay waxa meesha yaala in aysan ahayn ku darsi balse ay tahay sidii loo dhisi lahaa golayaasha deegaanka ee Puntland oo hadda codeyntooda iyo codbixintooda ay ka socoto Puntland taas oo iyada qudheeda muran badan oo ka taagan yahay waxa cabsida dadka la gelinayo waa shaki laga gelinayo inay golayaashooda deegaanka doortaan waxa la leeyahay madaxweynuhu doorasho uma socdee ku darsi buu socdaa soo saas baa oo ku darsi hadda uu socdo doorashadan ma iska daawiyada aado iyada waa la baadi karaaye maxaa iska dhaxgalay aniga ma ahan madaxdii hore oo dhan waa ku dirdirsan jirtay dibna ma lahayn laakiin meesha u socono ma aha ku darsi iyo la dooranaya ninka raba inuu labada isku khaldana dadka uu jahwareerinaya annaga waxaan u soconnaa waxa weeye nidaamka dawladnimada inaan horumarino hadda waxaan u soconnaa golayaasha deegaanka in la doorto shuruucda iyo dastuurka wuxuu qabana lagu dhaqmo madaxda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqay in bishii January 13 la qaban doono shir looga hadlayo arrimaha ammaanka iyo nabadda ee dalka Ukraine xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay ku adkaan doontaa in ay go'aan midaysan ay ka gaaraan xal u helidda colaadda dalka Ukraine dowladda Russia oo darafka colaadaasi kama dabci doonaan mowqifkooda waxaana ay ganafka ay ku dhufan doonaan codeyn kasta oo ka soo baxda kulankaasi dowladda Russia waxa ay adeegsan doontaa ayaa liya awoodda diidmada qayxan ee veto power maadaama ay Russia ay ka mid tahay 5 dal ee ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee leh awoodda codka diidmada qayxan go'aan kastana ay ku burburin karto natiijadiisa ka soo bixi karta warkii aad kala socoteen janalka galka wararka waa naga intaas warka waxaa idin la socodsiinaya anigu Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto intaan dib ugu kulmayno warka lamid ah waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo